الرحمن الرحيم وصومال ستار اونلاين تريننج عشرة لغات انجليش كانوا وجودنا iyadoo noo soconayna casharada computerka qaybihiisa kala duwan iyo casharo kala duwan oo buugaag kala duwan luqadda Ingiriiska ayaa waxaan ku sii geli jirnaa book conversation inaan qaadano ardayda oo casharada loo diro Somal Star Online Training waana ajirnaa waxaan diray casharadiisii imtixaanaha English language and computer teaching waa Somal Star Online Training marka step by step baan baranayna casharada oo tartiib baan u qaadanaynaa waxaan soo dhamaaday ardayda buuggan waa book conversationada ku xiga kadibna taynisidaan bilaabeynaa وانا مهم جدا مكارتيدا كلا essential grammar kuwa qaato dhexaadka ay kuwa buugga practice and progress iyo development kuwa qaata kuwa first qaata kulligood waxay ku soo dhawaanayaan Somal Star Online Training waana muhiim jiddan taas marka casharkeena maanta conversation ka wuxuu sii marayaa inaan qaadano which oo ahayd and which is better keeba wanaagsan which waa kee is better wanaagsan baa arki doonaa marka conversation gaaban oo si qurux badan loo soo diyaariyay ayaan baran doonaa waana ardayga inuu ku celiyo soo diraa laga rabaa asiga codkiisa uu soo duubo waa very important taas marka casharkeygii baan soo gudaya conversationkii bilowga ahaa waa ii bilaabanaya marka waxaan soo gudagayaa casharkii waa inaad ila socotaan step by step conversation Somal Star Online Training which English baan ku baranaynaa laakiin waa which is better keeba wanaagsan which is better waxayna noqonaysaa keeba wanaagsan oo markaan halkaan imaanayno waa objectiga casharada ay leeyihiin oo conversationada sida loo qaadanayo iyo sida ardayda wax u dhiganayso baa tusaale ahaan waxaan ku qaadanaynaa sawiradii oo buuggan uu watay oo loogu talagalay ardayda inay qaataan kuwa Somal Star Online Training wax ka barta which is better keeba wanaagsan af Soomaali baa mar walba lagu turjumaya idinka la rabaa inaad fahantaan oo soo turjuntaan soo akhrisaan which is better keeba wanaagsan to study in barano Arabiga or ama Englishiga keeba wanaagsan waa su'aal which is better keeba wanaagsan to study in digano Arabiga or ama Englishka Arabiga is better waa uu ka wanaagsan yahay than Englishka how can you prove that maxaa ku cadeynaysaa taas how can you prove that markuu yiri Arabiga uu ka fiican yahay Englishiga marka la yiri English uu ka fiican yahay waxa su'aal baa tin maxaa leeyahay how can you prove that maxaa ku cadeynaysaa taas marka wuxuu yiri because sababtoo ah the holy Quran-ka barakaysan holy waa barakaysan waa ama creamka the holy Quran-ka barakaysan is better is writing ku qoran yahay in Arabic ayuu ku qoran yahay aniyo wiliba Arabiga is the language waa luqad which kaasoo marka luqadaasoo will be spoken lagu hadli doono in the doomsday maalinta qiyaamaha in the doomsday waxaa lagu hadli doonaa maalinta qiyaamaha luqadda Arabiga English lama isticmaali doono marka wuxuu yiri which will taasoo markaa be spoken lagu hadli doono speaking begatin spoken lagu hadli doono in the doomsday maalinta qiyaamaha that's why taas way sababta Arabiga is better oo kaga wanaagsan yahay than Englishka aan ku soo celiyo marka which is better keeba wanaagsan baadaysa which is better to study keeba wanaagsan inaan dhigano ama barano Arabiga or ama Englishka Arabiga is better waa uu ka wanaagsan yahay than Englishka how can you prove that maxaa ku cadeynaysaa taas because we sababtoo ah the holy Quran-ka barakaysan is writing wuxuu ku qoran yahay in Arabiga aniyo Arabiga is the language waa luqad which kaasoo markaa will be spoken lagu hadli doono in the doomsday maalinta qiyaamaha in the doomsday iska ilaali waa maalinta qiyaamaha that's why taas way sababta Arabiga is better ugu wanaagsan yahay than Englishka looga wanaagsan yahay marka taas aad looga wanaagsan yahay ayuu yiri English conversation-kii aan ku jirnaa casharkeeni kala wali uu sii socdaa marka if uu yiri hadii Arabiga is better uu wanaagsan yahay oo English is better uu ka wanaagsan yahay than Englishka why sababta do you learn at Bramway's if hadii Arabiga is better uu ka wanaagsan yahay than Englishka why sabab do you learn it at Bramway's Arabiga because uu yiri sababtoo ah I am aniga going waxaan u socdaa England ayaan u socdaa and you will never if you don't know hadii aadan garanin buu yiri Englishka luqadda Englishka you can't understand ma awoodid inaad fahantid you can't ma awoodid understand inaad fahantid the people dadka of that country ee wadankaas marka wuxuu yiri hadii aadan Englishka aqoon ma fahmi kartid dadkaas
because we sababtoo ah I am aniga going waxaan u socdaa to England ayaan u socdaa waddanka England and you if you don't know hadaad garanayn Englishka you can't understand ma fahmi kartid the people dadka of that country ee waddankaas marka casharadeenii oo barashada luqadda Englishka waa muhiim jiddan inaan barno marka step baan maraynaa ardayda bilowga ah oo buug koowaad buug labaad sii marayso conversationadan waa anfacayaan wayna qaadanayaan ardayda dhan conversationada waa loo wada dirayaa laakiin casharada buugaagta un baa kala duwan ardayda haddii ay kuwa sare iyo kuwa hoose conversationada ka dhexeeyo laakiin wax kale kama dhexayn doono buugaagtu way kala duwan yihiin waa Somali Star Online Training iyo Engineer Maxamed Axmed Bari casharadii taxanaha luqadda Englishka marka fi amaan Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh